aqoonyahanka weyn ee reer Soomaaliland Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa maanta khudbad cilmiyeed dheer oo kaga hadlayo waxa ay jaamacadu tahay iyo muhiimadda ay jaamacadu u leedahay kobcinta nolosha bulshooyinka adduunka u jeediyay ardayda wax ka barata jaamacadda Timacadde ee magaalada Gabiley. khudbad cilmiyeedani oo lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa waxa kale oo ku wehelinayay gudoomiyaha jaamacadda Timacadde Dr. Ismaan Yuusuf Magan, gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Timacadde Dr. Cabdullaahi Cumar Cige, macallimiinta iyo ardayda jaamacaddaasi, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. gudoomiyaha jaamacadda Timacadde Dr. Ismaan Yuusuf Magan oo ugu horeyn halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay ayaa ka waramay taariikhdii kala duwaneed ee jaamacadda Timacadde soo martay, isagoo sheegay in jaamacaddu ka kooban tahay 7 liyadood, isagoo halkaasi ka cadeeyay in ay dufcadii ugu horeysay oo tiradoodu ka badan tahay ilaa 100 arday bisha 9aad ee sanadkan aynu ku guda jirno ay ka qalin jabin doonaan. gudoomiyaha jaamacadda ayaa hadalkiisa ku soo gabagabeeyay isagoo ku soo dhaweeyay aqoonyahanka caanka ah ee Professor Axmed Ismaaciil Samatar, waxaana sheegay inay ka jaamacad ahaan soo dhaweynayaan. Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad cilmiyeed dheer oo kaga hadlayo jaamacaddu waxa ay tahay iyo dhismaha jaamacaddu heerka ay ka galayso dhismaha nolosha bulshada adduunka, isagoo xusay in uu wax ka soo dhigi jiray muddo ka badan 30 sanadood marka laga yimaado intii uu wax dhiganayay. Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa kale oo ardayda ka soo qayb gashay khudbadiisaasi u sharaxay waxa ay kala yihiin qabyaaladda iyo tolnimadu, isagoo ku sharaxay in qabiilku yahay koox dad gaar ah oo isku urursaday ujeedo gaar ah oo ay ku waxyeelayaan xuquuqda reer kale, laakiin tolnimadu ay tahay abtirsiimo xidhiidh ka yimaada labada waalid ee qof kasta oo ku abtirsado, isagoo sheegay in tolnimadu ay tahay mas'uuliyadda qofka ka saaran waalidiintiisa hadday nool yihiin iyo hadday dhinteenba. gabagabadii ardayda jaamacadda iyo aqoonyahanka da'da yar ee reer Gabiley ayaa halkaasi su'aalo badan ku weydiiyay professorka, isaga oo dhammaantood isla goobtaasi kaga jawaabay. mar la weydiiyay aqoonyahanka maadaama uu reer Gabiley yahay in uu ka mid noqon doono maamulka sare ee jaamacadda Timacadde, waxa uu ku jawaabay jaamacadda boorkeeda waxaan isku darsanadii bay marxaati ka aniga sharaf bay noqon inaan ku soo biiro boorka jaamacadda. sharaf bay sharaf waajibkaan ka hadlayay inaad garato waajibkaaga markay ku adkari karta inaad gudato ayay ka mid tahay. waxaan u baahnaana u doonaa dee waqtiga ay bilaabmayso mas-uuliyaddaasi. mas-uuliyaddu waxay tahay boorar badan baan ku jiraa, ilaa 12 baan ku jiraa jaamacadda Soomaaliyeed inaan ogaado mas-uuliyaddu waxay tahay. san dee mas-uuliyadda uga soo baxo hadda waa nin noqon war ninkii intuu yahaa un mama hadal haynaba oo dee mabaan soo hadlaba oo maba jiraba taama doonayna. I want to protect my reputation. marka in principle yes aan ka wada hadalno maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley ayaa deeq lacageed guddoonsiiyay ciyaartooygii dhulka gobolka Gabiley ee kubadda kolayga uga qayb galay tartan ciyaareedkii gobolada Soomaaliland, isla markaana guusha ka gaadhay. munaasabad ballaaran oo lagu guddoonsiinayay abaalmarinadani ayaa waxa lagu qabtay hoolka dawladda hoose ee degmada Gabiley, waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa maamulka dawladda hoose ee degmada Gabiley oo hogaaminayo gudoomiyaha golaha deegaanka ahna degmada Gabiley Shacayb Maxamed Muuse, gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Gabiley Cabdi Yuusuf Taahir Gool, xogeyaha fulinta dawladda hoose degmada Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakar iyo mas'uuliyiin kale. waxaana ugu horeyn halkaasi kala hadlay ciyaartooygani gudoomiyaha golaha deegaanka Shacayb Maxamed Muuse iyo xogeyaha fulinta dawladda hoose, waxaana kamid ah hadaladoodii sidani oo runtii waxa weeyaan magac iyo sharaf u soo heshay gobolka Gabiley oo hadday tahay wasiirada gobolka soo jeeda iyo hadday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tahay iyo hadday maamulka dawladda hoose tahay iyo hadday golaha deegaanka tahay intaba runtii isku barbar taagnayn inaynu guusha gaadhno oo hadafkeena iyo yoolkeena iyo ujeedadeena ma ahayd mid qura qalbi qura isku ahayd aan doonanay keliya inaan bahalka maanta sidii yeelaan soo taabano markaan taabanana ka wada hadalay ka dambeeyay insha Allah. aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa ficilka wanaagsan iyo guusha aad u soo hoyseen gobolka Gabiley. waayo xafladii ballaaneed ee la isugu yimid maalintii dhaweyd ee shalay laga hadlayay dee ciddii laga xusay dee gobolka Gabiley u baahay ciyaartooy soo dhaqaaqay oo tiimankii ciyaartooy ka tirsan
وهالكا جايسة يو قاطع بالله يا مرلوسي واحد ترتيبكي كوبده كوليga gabagabadiina waxay guddoonsiiyeen abaalmarinadii ay ugu tala galeen ciyaaryahanadani waa maxamed xasan sheekh maxamed juba Samsa TV Gabiley.